Akadeemiya Goboleedka Afka Soomaaliga ee AGA ayaa maanta si rasmi ah uga furtay magaalada Muqdisho shirka fadhiga wasiirada iyo kalfadhiga golaha fulinta ee akadeemiyada kaasoo socon doona muddo 4 cisho ah. Shirka waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya, mas'uuliyiin ka socota dalalka xubnaha ka ah akadeemiyada oo ay ka mid yihiin wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista ee Jamhuuriyadda Jabuuti, wasiir ku-xigeenka dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka Soomaalida, gudoomiyaha Akadeemiya Goboleedka Afka Soomaaliga ee AGA, xubnaha guddiga akadeemiyada iyo marti sharaf kale. Muddada 4 cisho ah oo shirku soconaya waxaa diiradda lagu saari doonaa horumarinta waxbarashada afka Soomaaliga ah, cilmi baarista iyo wada shaqeynta dalalka xubnaha ka ah akadeemiyada. Waxaa sidoo kale la qorsheynayaa in laga soo saaro go'aano muhiim ah oo kor u qaadaya tayada iyo isku xirnaanta waxbarashada iyo dhaqanka afka Soomaaliga ah. Gudoomiyaha Akadeemiya Goboleedka Afka Soomaaliga ee AGA, Macalin Saciid Saale Axmed, ayaa ka warbixiyay howlaha iyo qorshaha akadeemiyada. maantana tashi ay tahay in afartii waxoo isa saaraa sidii loo fulin lahaa ee inuu ku meel mari lahayn ayaanu u wada fadhinaa. Sidoo kale wasiir ku-xigeenka dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka Soomaalida, Salaad Dabar Yuusuf, gudoomiyaha akadeemiyada dhaqanka iyo suugaanta Ismaaciil Yuusuf Cusmaan iyo danjirihii hore ee Kenya Maxamed Cabdi Afey ayaa ka hadlay shirka. anigu xafiiska dhaqanka iyo dalxiiskan ka socda dowladda deegaanka Soomaalida sharaf bay tahay halkan 35 sano kadib aan anigoo caafimaad qaba imaado ilaah baa mahad leh. marka labaadna guddiga AGA oo igu marti qaaday meeshan on behalf of anoo ku hadlay magaca dowladda deegaanka Soomaalida ayaan mahad u celinaynaa. waxaan jeclahay barnaamijkan wada shaqeynta naga dhaxaysa iyo horumarinta afka. 3 arrimood ayaa afka mushkiladda haysata in aad looga doodana ugu fiican tahay. maxaa yeelay erebixinada culayska hadda taagan ka mid tahay. erebixin mushkiladda taagan technology timid hadda. technology-dii erebixin ay u baahan tahay. maanta AI-da waxaa la yiri garaadka macmalka dadka Soomaaliya ay yiraahdeen. akadeemiyada goboleedka afkana waxay yiraahdeen garaad gacmeed Soomaaliya saas loo bixiyay. marka Soomaalidii waxaan rabnaa hal erey ama hal erebixin oo dadka dhan wada gaaraan noqonayna. goboleedka IGAD dowladaha ku bahoobay wadamadan IGAD magaaladan waa New York. marka shirkii markaan soo xaadirnay waxaa ka soo qayb galay 5 dowladood. marka dowladda Kenya anaa masalay, dowladda Ethiopia anaa waqtiga waxaa masalay safiir Cabdimajid Allah u naxariista. dowladda Djibouti waxaa masalay wasiirka arrimaha dibadda. dowladda Soomaaliya waxaa masalay Yusuf Deeg. marka meeqa dowladood. shirkadoonkana wuxuu ahaa dowladda Suudaan. marka shirkii markii aan furnay oo noo furay wasiirka arrimaha dibadda Suudaan, ajendaga laga hadlayo shirkana waa Soomaaliya iyo dib u heshiisiinta Soomaaliya. markuu shirki furay yaa annagu oo inteena Soomaalida ah yaa shirki u bedelnay af Soomaali. markii ninkii wasiirka intuu nagu wareeray ayuu waxaad yeelaysaan intiinan waxaad tihiin Soomaali, waxaad ka hadlaysaan waa arrimaha Soomaaliya. marka shirka dhamaysaan go'aamada ii keenay inuu idinka baxaya. marka waxaad garan kartaa luqadda sidii noogu fududaatay ilaa anagu markaan wada hadlaynay si aan isku qancin kartaa jir. xilli waxaa jirta mar dhalinyaro Talyaaniga joogtay oo ka luntay meel inay joojiyeen in ay weydiiyeen meeshay u socdeen inuu u tilmaamo. markaasuu yiri va diritto dopo giro sinistro. markaasina ninka Soomaaliya ku hadlooya marka giro iyo diritto u bax kelmadihii waxay noqdeen runtii qayb ka noqday af Soomaaligeena. marka dib in loo soo celiyo luqadda waxay runtii xoojinaysaa Soomaalinimadii, waxay xoojinaysaa dadkii identity-goodii iyo runtii siday maaragta u ogaan lahaayeen meesha aan ka nimid.
wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdulqaadir oo shirka fura ayaa sheegay in go'aamada ka soo baxa shirka ay noqon doonaan kuwa uu horgeeyo madaxda ku bahoobay Akadeemiga Goboleedka Afka Soomaaliga ee AGA. waxaan doonayaa inaan halkan ka ballan qaado in go'aanada aad soo saarteen ee guddiga fulinta uu soo saaro anigana aan kulan kale u soo laaban doono maadaama aan hadda wasiirka sagootinayo ilaa iyo intuu shirka socdo go'aanada aad soo saartaan in wasiirada saaxiibaday ah aan gaarsiin doono haddii ilaahay yiraahdo sidoo kale inaan gaarsiin doono madaxweynayaasha dowladaha ku midoobay akadeemiyadda afku waa heebteennii afku waa garashadeennii waxaad tihiin mas-uuliyad weyn dad ay saaran tahay waxaan rajaynayaa insha allah tacaala shirkana guul baan u rajaynayaa waana idin la joogi doonaa idinka warhayn doonaa ayaan aadan ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.